dadkaanu dhammaantooda diyaaradda saaran oo annaga dawladda Soomaaliyeed iyo maamulada baan markaan fiiriyay anaga hawadan haysanaa dhulkiina waa naga haysta shabaab markaas sida aan dhulka ku qabsan lahayn inaan ka fikirno oo sida dhabta oo wax in laga hadlo u baahan maantaas waa horumar aan laga fikiri karin wax kale oo laga fikiri karnaa jirin ilaa ay taal helo marka dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa ayadoo caalamka la kaashanayso annagana aan ballan qaadayno garbeedanahay inuu shirkan u noqdo shirkii arinta ayada ka soo bixi lahayd dadka Soomaaliyeed waa shaqaysan lahayn anaga dadkayga beeraley iyo xoololey waaye beerihi waa la tacbi laayahay xoolihii waa la tacbi waa la dhaqan laayahay waxa loo soo dhigtay ilmahoodii kii 9 sano jir in laga qaado hadda magaalooyinka anaga aan joogno dad badan oo waxa arkaysa ilmihii la soo qaxay marka dadka Soomaaliyeed shalay waa la siray diin iyo waxba loogu soo dhuuntay alxamdulillah maanta way fahmeen inaysan wax kan ay diin ahayn maalmihii dhaweed runtii dhibaatadii dhacday aad iyo aad aan uga xunnahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawantayna Allah caafiyo laakiin dadka Soomaaliyeed dareenkooda banaanka soo dhigeen awal shirarka ay ka cabsan jireen shabaabku ay ka cabsan jireen ayagoo ka cabsanayna magaalo walba inta soo baxeen ayagoo caaynahay oo leh dulli wayle ay soo baxeen marka in looga faa'iideeyo dadka arintaas maanta taagan ayagoo dhana u diyaarsan marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kulli dhihi lahaa madaxweynaha iskale laakiin waxaan dhihi lahaa wax walba inaan ka hormarino sidaan amniga u qaban lahayn